banaanbax looga soo horjeedo hadalkii gefka ee ka soo yeeray madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron isla markaana uu geystay nabigeena naxariis nabadgelyo korkiisa ayaa waxaa maalintii labaad uu ka dhacay magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan. dadka dhigay banaanbaxa ayaa sitay boorar ay ku qoran yihiin erayo ka dhan ah Faransiiska iyaga oo sidoo kale gubayay sawirada madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron. waxaa dibadbaxa ka qaybaha ganacsatada magaalada, arday, culimaa u diin, waxaana ay dhammaantood sheegayeen in ay joojin doonaan ka ganacsiga badeecadaha ka yimaada dalka Faransiiska. nabigeena calayhi salaatu wasalaam aad ayuu u qayr badan yahay, magac lagu qoro cashrigana asaga ayaa ugu horeeyay makhluuq. اللهم صل على سيدنا محمد قالك إيمان الله وها مكرون وحاليا هدعو مسلمك عوضي ليين ياندولك لغو دارين وحاليا مكرون هدعو إسلامك كر الله كديغو نبينا عليه الصلاة والسلام كركيسة ينغشيسة وعناقا إنو دنت وحي مادانا وقال وضعيف ودولي أناقا وحانا داد إسلام منهن ضعيفين منهن عادة قاطيال qiiradaydu waxay u kacsantahay dhammaan muslimiinta guriga geed kasta ay ku nool yihiin kar Allah ka dhigo. halkii qaswatu wixii rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxa difaacay rag saxaabada kamida markaasuu nabigu wuxuu dhahay yaana difaaca oo janno dooranayo asxaabta inay isku dhigaanay halka inay ku dhamaadaan ay rasuulka sallallahu alayhi wasallam difaaciisa u dhamaan jireen. Abu Bakar radiyallahu anhu markii godka ay isla galeen nabiga sallallahu alayhi wasallam godadku waxa ku yaal godad badan oo bahal ay ka soo baxayeen. Abu Bakar inuu dharkiisu u jeexay ayuu rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu ka xiray god walbo ee wax ka qeynay uu ka baqay hal goda soo haru mar uu way uu geliyo markaasuu lugtiisa saaray Abu Bakar radiyallahu anhu lugtiisa markuu saaray Abu Bakar nabigu waa yara seexday xooga markuu seexday Abu Bakar lugta ayaa laga qaniinay waxa Abu Bakar ka xumaaday inuu rasuulku hurdada ka kiciyo isagoo la qaniinay ayuu ku adkaystay lugtii ku hayay darbiga inuu khayliyo ayuu diiday isagoo rasuulku sallallahu alayhi wasallam hurdada inuu ku baraarujiyo insha Allah ta'ala inta nafta ay nagu jirto بإذن الله تعالى نبي محمد صلى الله عليه وسلم ودفاعين دونها وندفاعنا إن شاء الله تعالى مكرون وحدهنا هدعو إن ربي سبحانه وتعالى نبي أو نوصو دري الرسول كيساها أو عرض كيسا لوحد قدبي أو قال حمو أريا ونبي عرض كيسا قوحد قدبي إن اندفاعنا يا نالكا وستاقنا نفتنا إيا مالكينا إيا نفتنا إنه كفرنا ديار مونا نبي محمد إنه كدفاعنا ديار مونا ugu dambeyntii banaanbaxani maalintii labaad ka dhacay magaalada Beledweyne ayaa waxa uu ku soo ilaaday si nabadgelyo ah. Yaasiin Cali Axmed